ninkani waa muslimkii u horreeyay ee nuclear sameeyey. waa ninkii Pakistan ka dhigay Pakistaanta ay maanta tahay. Haahey, waa ninkii Pakistan jiritaankeeda qaybta ugu weyn uguna muhiimsan ku lahaa. waxa uu ka dhigay waddan ku gaashaaman hubka ugu awoodda badan dunida oo aan lagu soo degdegi karin. awal hindida loo caabudka ah ayaa wixii ay rabaan ku samayn jiray, laakiin ninkan ayaa waddankiisa dhulka ka qaaday oo ka dhigay quwad Hindiya la siman bale kaba awood badan. oo Hindiya waxay haysataa 156 madax oo bambo, halka ay Pakistanna haysato 165 madax oo awood badan. Abdulqaadir Khan oo loo yaqaano aabbaha hubka wax kumaada ee Pakistan waxa uu ahaa saynisyahan iyo fiisigisyahan Pakistaani ah oo alifay hub nuclear oo khatar badan. waxa uu ku dhashay magaalo lagu magacaabo Bhopal oo ka tirsan Hindiya sanadu markay ahayd 1936 miilaadiga. aabihiina waxa uu ahaa macallin waxaanu dhintay 1957. Mr. Khan yaraantiisii waxa uu xiisayn jiray sayniska iyo barashadiisa, waxaanu cilmiga fiisigada ka bartay jaamacadda Karachi oo Biljamka ku taala. waxa uu Pakistan ka guuray sanadii 1952 si uu u helo nolol dhaantay midda uu xilligaasi ku jiray. waxaanu ka howlgalay warshad, waxaanu dhinac ka watay waxbarashadiisa isagoo ka baxay jaamacaddiisii Karachi ee Biljamka. waxa uu mar kale shahaadada PhD ka qaatay jaamacad kale oo Biljamka ku taala, waxaanu bartay waxa loo yaqaano metallurgical engineering. intaas kadib waxa uu ku laabtay dalkiisa Pakistan, waxaanu ka howlgalay warshadda tamarta ee nuclear-ka. waxaanu horumariyay habkii iyo hanaankii ay u shaqayn jireen, waxaanu madaxii nuclear ee u horreeyay sameeyey sanadii 1997. intaas kadib Hindiya waxay bilowday inay tijaabiso hubkeedii nuclear ee u horreeyay, waxaanay 25 May sanadii 1998 tijaabisay bamba nuclear oo ay la makagsanaayeen, kumana ay baraarugsanayn inay Pakistan hubka yeelan karto. ha yeeshee 3 jeer kadib ayaa waxa ay Pakistan tijaabisay 3 madax oo si walba ugu awood badan midkii ay Hindiya tijaabisay, taasoo argagax iyo afkala qaadba ku riday Hindiya iyo dhammaan reer galbeedkii. sanadii 2004 Maraykanka iyo dalal kale ayaa Khan ku eedeeyay inuu teknoolojiyadii nuclear-ka u tarriibiyay dalal kale oo ay ka mid yihiin Iran, Liibiya iyo Waqooyiga Kooriya. Khanna waxa uu qirtay eedeymaha qaar ka mid ah, qaarna waa uu ku gacan sayray. reer galbeedku aad ayay ugu xanaaqsanaayeen, aad ayayna ugu cagajuglayn jireen, waxaanay ku xukumeen xukun xabsi guri ah. ha yeeshee dheg jalaq uma uusin. waxaanu sii watay hawshiisii hubka iyo horumarintiisii, waxaanu ku noolaa waddankiisa Pakistan si xor ah. Mr. Khan waxa lagu tiriyaa asaasayaasha Pakistan, waxaanu waddankiisa ka dhigay waddanka 6aad ee haysta hubka nuclear-ka. Khan waxa uu ku guulaystay bilado badan, waxaanu ugu dambeyntii dunida ka tegay sanadii 2021, waxaanu u dhintay xanuunkii COVID-19 ee dunida ku habsaday. Allah ha u naxariistee, waxa uu dunida ka tegay isagoo la jecel yahay, loo haweyn yahay, oo gutay waajibaadkii uu alla weyne ka lahaa abuuritaankiisa. maxaad sugaysaa haddaba aadna daawade? xillima ayaa dalkaaga ku soo kordhin doontaa wax? xillima ayayse taariikhdu ku xusaysaa? halkani waa Bijka Miraale ee muuqaalka like saar, una sii sheer garee saaxiibadaada kale. haddii aad nagu cusub tahay, wax badan ayaa ku dhaafay.